iyadoo dagaalka ka socda Suudaan ee u dhaxeeya RSF ta koox sida militariga u tababaran oo maleeshiyada iyo waliba ciidanka militariga uu lugta la sii galay usbuucii saddexaad laguna guuldareystay dhowr mar oo xabad joojin lagu dhawaaqay in ay hirgasho ayaa waxaa farta lagu fiiqayaa dalal dhowr ah oo ku lug leh dagaalkaasi. waxay isku jiraan dalalkaasi kuwa gobolka ah iyo kuwa ka baxsan gobolka. General Hamati oo ah hogaamiyaha kooxda RSF wuxuu ku eedeynayaa Masar inay garab siinayso Burhaan oo ah taliyaha ciidanka militariga una soo dirayso diyaarado dagaal iyo askar. Masar way inkirtay eedeyntaasi waxaana ay sheegtay in ciidankeedu halkaasi u joogaan dowlatus. Hamati ayaa isna xiriir dhow la leh Imaaraadka, Sacuudiga iyo Liibiya iyadoo dagaal oogaha Liibiyaanka ah ee General Khalifa Haftar uu sahay military u soo diray Hamati. RSF taas way beenisay. Wagner Group oo ah iyana koox caloosho shaqaysiyaal oo Ruush ah ayaa lagu eedeynayaa inay garab taagan yihiin maleeshiyada Hamati ee RSF iyaga oo boob ku haya dahabka Suudaan oo halka laga qodo oo gacanta ku hayo Hamati waxaana ay lacagta ka soo baxda ay ku kaalmaysanayaan ugana faa'iideysanayaan dagaalka Ukraine. Israa'iil ayaa iyana aan ka marnayn faragelintaasi waxaana wasiirkooda arrimaha dibadda la arkay isagoo la kulmaya Al-Burhaan oo ah generaalka ciidanka militariga hogaamiya waxaana ay sheegeen inay ka wada hadlayeen caadiyeynta xiriirka labada dal. Imaaraadka ayaa isna ka mid ah dalalka ku lugta leh dagaalka Suudaan waxaana sii dheeraanshaha dagaalkaasi uu saameyn doonaa qorshaha ay ku doonayaan inay dekado iyagu maamulaan ka dhisaan dalka Suudaan. Shiinaha ayaa isna maalgelin ka bilaabay Suudaan. Koonfurta Suudaan waa dal aan dekad lahayn ayuu dagaalkaasi saameyn weyn ku yeelanayaa sababtuna waxay tahay in dalkaasi koonfurta Suudaan oo aan wax dekad ah lahayn uu shidaalka uu soo saaro uu ka dhoofin jiray dekadaha dalka Suudaan.